suxufi damacsanaan ka duulo dalka Talyaaniga oo u socday inuu soo tabiyo warka koobka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa dib uga dhacay xilligii loo qabtay in diyaaraddaasi uu raaco. ninkani wariyaha ah oo u dhashay dalka Jarmalka waxa uu ogaa in haddii uu diyaaradani ka hadho aanu dhaqso u heli doonin tigidh labaad oo ku raaca diyaarad kale, taasina ay keeni doonto inuu dib uga dhaco bilowga koobka ciyaaraha. sidaasi awgeedna waxa uu markiiba ka fakiray khiyaamo uu diyaaraddaasi ku baajin karo. kadibna waxa uu garaacay telefoonka xarunta amniga ee madaarka Verona ee dalka Talyaaniga, waxaana uu u sheegay war beena kaasi oo tilmaamaya in diyaaradda ay ku jiraan waxyaabo qarxa, taasi oo kaliftay in booliisku ay dib u soo celiyaan diyaaraddaasi. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, ninkani wariyaha ah oo da'diisu ahayd 27 jir ayaa ciidamada ammaanku ay xabsiga dhigeen, waxaana uu sheegay inuu bamsaaran yahay diyaaradda oo uu sheegay in lambarka duulimaadkeeda. booliiska ayaa isla markiiba albaabada u xidhay garoonka diyaaradaha ee Verona, waxaana si degdeg ah loo soo fadhiisiyay diyaaraddaasi. ninkani oo 5 daqiiqo ka bacdi soo gaaray garoonka Verona ayaa mas'uuliyiinta madaarku waxa ay sheegeen in waqtigii duulimaadka uu ka dib dhacay. warkaasi oo dood kadib hadallo ay isdhaafsadeen ciidamada ammaanka, iyadoo ciidamada ammaankuna ay heegan ku jireen, waxaana ay markiiba u gudbiyeen saldhigga booliiska ee madaarkaasi ku yaala. baaritaano iyo su'aalo kadib waxa ay booliisku ogaadeen in ninkani uu yahay ninkii uu la soo xidhiidhay ee telefoonka digniinta u soo diray. sidaasi awgeedna xabsiga ayaa la dhigay, waxaana lagu soo oogay dacwad ku aadan inuu khalkhal geliyo adeega bulshada.